وحابينimada xalay ahayd xarunta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu maamuusayay fanaanada caanka ah ee Faadimo Cabdilaahi Kaahin Maandeeq. munaasabadan oo soo agaasimay ururka Kayd oo ay wakiil ka ahayd ayaan cashuur oo kamid ah haldoorka iyo siyaasiyiinta Soomaaliland ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Kulmiye iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland xubno isugu jiray abwaano Sugaandhaadhi iyo sidoo kale haldoor iyo mudan kale oo lagu soo marti qaaday munaasabadda. ugu horreyn waxaa halkaasi hadalka jeediyay oo ka warramay taariikhda ay fanka Soomaalida dhexdiisa ku leedahay Faadimo Cabdilaahi Kaahin Maandeeq. Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo isagu taariikhda fankana darsa waxaanu ka sheekeeyay sida ay ugu dhaxnooshahay fanka Soomaalida Faadimo Cabdilaahi Kaahin. marka anigu waligeyba waxaan oran jiray markay dumarka haweenka heesaya noqoto iyo codka iyo masraxa de qaabka loo joogsado aniga xaggayga number 1 waxa ay ahayd Faadimo ay ahayd ilaa imikana ah Faadimo iyadoo afkuun bay furtaa buud afkuun bay furtaa ya so natural wax iska caadi oo ya dadaal kale iyo waa furun bas marka waa hiba gooniyada ilaahay inuu siiyo hiba gooniya Faadimo raga xitaa wuu kala sheeg wuxuu yiri Maxamed Mooge iyo Axmed Mooge laba nin oo walaala oo labaduba codkoodu de cajiib u yahay. Maxamed dadaal badan baa ka dambeeyay markuu heesayo wad arkaysaa uu soo saaraya shaqo badan. Axmedna afkuun buu furay Maxamed Saleebaan sidaas ilaa afkuun buu furaya iyo kulay horta taasi waa mid waxa ilaahay mahadiisa Faadimo caawa inay nooshahay oo inala joogto oo wali sideedii ay u egtahay ayaan cashuur oo iyadu ka socotay ururka Kayd ayaa sheegtay in munaasabadani ay ku maamuusayaan ay hore ugu qabteen magaalada London laakiin aanay Faadimo gaabjoog ka ahayn imika ay magaalada Hargeysa ku guddoonsiinayaan aweeriskii ama shahaado sharaftii loogu talagalay Faadimo Cabdilaahi Kaahin Maandeeq. warkan London baa lagu qabtay aad iyo aad looga taariikhoobay maxamed aan dacar uga taariikhooday marka caawa waxaan doonaynaa in wasaaradii hawsha ay ka bilowday radioga hawsha ay ka bilowday qarankeeda iyo ummadeeda iyadoo dhex joogta inaan ku guddoonsiino maadaama ay London nala joogin runta ujeedada ugu weyn waa sidaa marka awalka aan London ku guddoonsiinay baan halkan ku guddoonsiinaynaa. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Kulmiye iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan ayaa ku dheeraaday taariikhda iyo sooyaalka ay fanka ku dhex leedahay Faadimo Cabdilaahi Kaahin Maandeeq oo lagu sharfayo lagu maamuusayo lagu xusayo taariikhda dheer ee gunta dheer ee ay ka soo qaadatay fanka aasaaskiisii iyo quruxdiisii ee reer Soomaaliland iyo Soomaali oo mararka qaarna Afrika iyo adduunkaba ay u talowday waxaa guddoonsiiyey shahaadada ku maamuusay ururka Kayd ay wakiil u tahay ayaan cashuur oo iyaduna aan aad iyo aad uga mahad celinayno. waan ku ambalinaynaa taariikhda aad ummadda ku leedahay baa caawa abaalmarinta lagu siiyey golaa lagugu siiyey waxa lagugu siiyey adiga oo ina yaraa oo lagu garanayo oo Maandeeq ah quruxda inkastoo maantaba kugu taalo haddana quruxdaasoo 15 jira halkaad heestii ugu horreysay ka qaaday ayaa caawina lagugu abaalmarinayaa. Professorka wasiirka Axmed Saleebaan Bidde meeyey agaasimihii meeyey waa kadee maxaan ku dhahday wejigu loo joogo fanaaniintii iyo suugayaankii loo wada joogaan daayada ay soo wada baxday dad fara badan oo aqoon ah oo suugayahana ay joogaan waxaan leenahay soo dhawow. intii ay munaasabadda socotay waxaa halkaasi lagu soo bandhigay
heeso ay hore u qaaday fanaanadda faadimo cabdilaahi kaahin maandeeq ayaa iyadu ka mahad celisay munaasabadan in lagu maamuusayo waxayna u mahad celisay cid kasta oo soo abaabushay oo qayb ka ahayd in maanta weeriskan lagu guddoonsiiyo magaalada Hargeysa. inantan ayaan cashuurna waa safiirkii u fadhiyay Soomaaliland in London safiirkii Soomaalidana way tahay waa laba wasiir kolka ilaahay waxaan ku mahadinayaa labadooda ay halkaa ay joogaan iyagana barnaamijkii sameeyay oo isoo xasimay oo taariikhda halkaa keenay sida nin wax taray loo iloobayo ma nolol wada ilooba